بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام يا بلشة الصومالية ملك استيجوكت. هربا عاوين كهذا الرقم. وأرجع سيد خوارج تاب سابسن. إحنا أركي مظاهرات فيسبوك كسعودة. وح مظاهرات ضيّة خوارج تيجي الشادي. خوارج تيجي الشادي. وكو جودها كتيرة إسقارية. وحافظ وضي ما أنت. نشيخ شيكته وقروت شوه. وحاول خوارج تا أنا ضد عالمين على المسكات. أجانبته guryahoodii ka soo duulay gurigayga nagu soo weeraray bisha rabadaan la dagaalamaya dhiigayaga banaystay maalkayaga banaystay maxaastayada banaystay dhulkayaga banaystay duulimaadka oo bisha rabadaan dhiigayaga daadinaya wuxuu yiri gaala ma haddaad dishaan dambiilayaal baati halka office wuxuu yiri gaala ma haddaad dishaan dambiilayaal baati وهدانا دي المحاصنة إياه وأقعمها تاجو لبضع قعمه تاجو نينكو ويلي هاي هداد الشان دمبيلاتي وانك رجع يقلاي تتك يقلاينا إياه عيدك يقلاينا إياه وانك مركي يقدم بيسي ما أنتي يقدم بيسي ميت كجاج جارا إيو عضيو ما إيو نيك اللي يراهدو إيو تورية إيو رجلي سلاكيش صاحب بضيعها ماشي ده تشوي وحي قال ما هو مال كودون وايد كحاران دمر كودون وايد كحاران مدلي هدي داو عود أداء أسكتنا ما تهابن كدي وما يستري كدي نك ولاية ما يستري كدي وأنا نقرح كحرية هاي وأنا لقبان كرين بيهداد الشد ولا ما يستري دمبيلات نك الشيخ الشيخنا يهرت أنت هذا كهربين هذا الكيس واكنه إلى اللي جيست بلاد تسعى عن الإسلام ولو إذا منع ربا باقاس إنه جاره إلهي تعصر سبحانه وتعالى مرحبا بالعلماء باقي أجل لغو فريه شريعة إلهي إنه إلهيات قف قدام السعيد إلهي إلهي ووضع إلهي أجل سرق فري أما النبي فري عن الله إيمان وإذا لغه إذن عن طهري نصر إلهي هلمي الله المستعان مركا إلهي تعصر لنعي بيد الله رابنا وحان حوائنا باق وقدره dadka lala dagaalamaya wargaalo ma munaafiqiin ma waa dad muslimiin ah waa walaalaheen waxa dibay cidii marka iyaga ka tirsan oo la qabto isagoo la doon in la dilo ma xaasaskooda sida gaalada xaaskooda loo qaynaysan far lama saari karo dal islaamiga carruurtooda waxa didi karo way maalmo ka hor maalmihii soo qaadkani bilaabanayay ninka sheekha sheeganaya maalin mahaas wajigan kaluu lahaa wuxuu noogu fadwooday annaga ciidanka ah xataa soonka in laydinka cafinayay soonka xataa waajib idinku aho jihaad baa ku jirtaan waa afrika dhaanbuna lahaa waatan ayaduna ila dhegeyso waynu ognahay reer Puntland dagaal bay ku jiraan ramadaanna waa soo socotaa soonku waa cibaado ilaahay lagu caabuday dagaalka lagula jiro daacish wax la midana isaguna waa cibaado labada cibaado isdiidi mayaan ninna kuma cudu daaran karo dadaalkii iyo dagaalkan ku jiray soon baa soo galayo waa nasanaya ama gurigan ku soomaya cid allaale cidii dagaalka ku jira cibaaday ku jiraan nabigana waxa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ayaantii fatxu makkah asxaabta inuu ku yiri radiyallahu ta'ala anhum umira an-nas bil fidri hadiiska waxa warinaya waa sunan abu daawud ayuu ku yaala iyo musnad ahmad labadaba روايات كل فربضنا حديث كواليه أمر الناس بالفدر عام الفتح وقال تقووا لعدوكم فروك لمركي لجلي مقالة مكة اللي دقال إنه دعاء لقبقي نبي وحي عليه الصلاة والسلام وحفر فريدتك إن أفران عدوين أياد وحوي سنة سامي تذكر دقالها كجرة دقال كان ودقال حق محايل النف هي مال iyo maxaan ku raahdaa dal iyo dad baa lagu difaacay waynu ognahay nimankan 10 sano ay dadkaas naftooda dilayeen ciday doonaan xoolahooda dhacayeen maxaan dhibaatooyin farabad amnigi ay kharibeen wadan in laga qox ay sabab u noqdeen dagaal xaq ah way maanta aniga ifadwanayo sheekhay ahaa waa jihaadi kartaa iyo maalintaas oo keebu khaldan iyo keebu sheekhay waxaan weydiinayaa kood mudaharaadaya khawaarijta
Facebook ka mudaharaadaysa baa waxaan weydiinayaa ninkaani shalay iyo maanta keebuu saxan shalay anuu lahaa mujaahid baa tahay soonka laguguma laha gal dagaalka afur buu ilahaaye maanta maxaa bedelay waa loo soo hanjabay sooma ayagaa usoo hanjabay khawaarijtu waa labo waa saddex wey mid mabda ku gala mid lacag ku gala iyo mid baqdin ku gala wey khawaarijtu saddexdaas wey sida dadka khawaarijta saddexdaa atamo wey mid mabda buu ku yahay oo waa kii abuuray falsafada leh mid lacag baa la siiyaa oo dhuunta sakaxayso waa imaan low midna baqdin fulay ah loo soo dhaarto oo kale baa kaxaysa waa sida ninkan oo kale baqdin baa hadda laga shaqaysanaya oo waxaa lagu dilayaa haddaadan fadwoon oo aadan dhiiggayaga iyo naftayada iyo maalkayaga inta firxadkaa badbaadi baadi oo maxaad tidhahdaa waxaad tidhahdaa ciidanka kii dila waa gaal dheh si ciidanku dagaalka askarigu waa nin muslima si dagaalka uga istaago waxaad tidhahdaa ninkaa dila waa gaal intaas waa kala shiriib waxaan qoray qoraal baan qoray intaanu buuraha almiskaar intaana aadin waxaa la reebaya inaan waddankan sifayno oo yaan ka sifaynaa khawaarijta midka fulinimada ku raaca khawaarijta midka lacagta ku raaca khawaarijta midka mabda'a ku raaca inaan gudaha ka sifayno oo naftiisa iyo maalkiisa iyo masabkiisa iyo dumarkiisaba qanimaysano taasa xaq u lah haddaanan leeyahay dadka soomaaliyeed weliba reer puntland mid baan leeyahay ka digtoonaada waxaa culummada sheeganaya ina muuminka maanta naftayadii iyo maalkayagii iyo mansabkayagii kusoo duulay ee suuriyaanka iyo marookiyaanka iyo ijbitiyaanka keenay in hebel buna la sheeganaya waa nin majeertaan oo aniga masabi la wadaaga sheekh buna sheeganay oo sheekh cabduqaadir muumin baa la lahaa maantana wuxuuna dhaxalsiiyey waad aragteen dadka noocaasa way waxaad sheekha ka dhiganaysaan oo sheekhu sheeganaysaan sheekhna maaha waa dayuus diinta islaam ka ganacsada wey ninkaa hadda halkaa aan ka sheegayay ee aan lahaa khawaarij wey haddaan leeyahay adeerayaalow dhiiggayaga mujaahidiintii ku dhintay calmiskaar raggii saraakiisha ah ee saaxiibaday ahaa aniga dhiiggayga ayuu ahaa igaga daatay meesha adeerayaal ma aha mid aan uga gabanayo wejigan oo qarsanayo tuug dhalay khawaarija dhiigga ka ganacsada mansabka ummadda ka ganacsada lacag ku raadiya baqdin dadkiisa ku laaya dadkiisa sheeyaha ogalkaala ma aha mid aan indhaha kaga qarsanaya ma midka calmiskaad jooga iyo midka halkan ka taakuleeyaba waa isukay mid dhiiggaygu ma aha mid xaaraan dhulku dhacay waa dhiig xalaal dhulku dhacay wey dhiigana waxaan dhulka ugu daadinayay dhiiggaygu daadanayay inaan dalkayga dadkayga iyo mansabkayga aan difaacdo inaan gabdhahaygu nabad iyo nolol ku xaragoodaan wey in aan waxa weeye puntland baqdin looga seexan wey ninka maanta leh ninka dilaya ee miinadu ku xiran tahay ee isqarxinaya ileh waa muslim oo lama dili kara ninka ileh ujeedkiisu muxuu yahay su-aal baan weydiiyey ujeedka ninkaasi muxuu yahay ujeedkaasi waxa weeye in askarigaasi boqo la yidhaahdo ilaahay ka baq ninkaas haddii alla ku rooyahay ha dilin muslim weeye ninkaasi ciidankuna kasoo laabtaan meesha laakiin kuwa sidaa ku laabanaya ma nihin kuwa khawaariji diin noo sheegaysana maaha kuwa khawaariji diin noo sheegayso maaha culummo hadday noqoto culummo waa leena sheekh qorane iyo rag laba annaga culummo noo ah diintana noo haya ogana dambayna culummadan annagu ku dabafaylna waxa weeye kuwa aan mabda'ooda gadan wey kuwa aan iska rogin wey kuwa maalinba meel aan ka qadan wey kuwa maalinna ayagoo hebel waa gaal leh maalinna muslim leh aan la arag wey kuwa halka qadiyad la wey kuwa qadiyadoodu tahay diinta islaamka wey kuwaasa annaga culummadeeda ah laakiin qof isbeddelaya oo 10 shaati leh oo mar khawaarijtu lacag ku adeegsanayso mar khawaarijtu ku adeegsanayso hadii ku reeyahay ee ku adeegsanayso muxuu ahaa baqdin ku adeegsanayso mar khawaarijta mabda ku ah kaasi annaga nooma aha sheekh nooma dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland ka digtoonaada yaan shaati culumadeed ku soo bahalkaysan yaan shaati waxaan arkay Facebook laga mudaharaadaya culumaa lacay culumadu ayuubaan anigu qofka aan isha saarayo cidna ogama heebaysto taydaan socda tuug dhalay weeye ninkii shalay yiri soon laguma lehee dagaaltan maantana yiri ninkaad la dagaalamaysid waa muslime ka joog goormu ogaad
shalay markuu lahaa afur ninku macnaha ma ogeyn miyaanu maanta ogaadin musliye maanta markii lasoo wacay oo lagu yiri haddaadan ka laaban oo la oran nabadbaadi buu maanta aniga ii fadwoonaya aniga sheekh ima tihid haddaan leeyahay xaq waxaan u leeyahay almiskaad kuwaan ku cayrsanayo sidaas oo kale adiga kugu cayrsada xaq u leedahay reer puntland waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay khawaarijta ilgooniya ku fiiriya hooyooyinka soomaaliyeed hooyooyinka reer puntland ciidamada qalabka sida mujaahidiinta ah dhiigoodu daadanayo maaha dhiigoodu ciyaar maaha gabadha habeeniya maalin ciidanka daba taagan ee burka u dubaysa dhididkeeda dhiiggeedu ciyaar maaha wiilka habeeniya maalin inta u dhaxaysa boosaaso iyo inta u dhaxaysa meesha la yiraahdo miiraale wiilka saa u teedsan oo jogboynta kasa taagan ee adeer gacal iyo dhiiggiisu daadanayo ee dhaxanta ku dhacayso dhiiggiisu maaha mid aan uga haybaysanayo tuug dhalay af qurmuun timir jeebabka uga jidho dhiigga ka ganacsada ma aha mid aan uga gabanayo kumana raali gelinayo oo ilaahay ka sarreeya fartaan kugu fiiqayaa waxaa tahay khawaarij dhiigga iyagu ma aha mid adyaal ku roon yahay laga ganacsada ma aha runtaan kuu sheegaynaa haddii cidi gaal tahay adaa gaala kuwa aan la dagaalamayno waa gaalo dhulkayaga kusoo duuleen dalkayaga kusoo duuleen diintayadii bay kusoo duuleen naftayadii bay kusoo duuleen caruurtayadii bay kusoo duuleen gabdhahayagii bay kusoo duuleen ma annagaa anagu ciraaq joogna war ma annagaa anagu suuriya joogna war ma annagaa maroko joogna sidee anagu ninkii nagu soo duulay haddaan iska celino loo dhihi karaa muslim weeye ninkaa dili lii dhihi karaa xaggee jooga anagu war calmiskaad yaa leh war marokiyaan baa leh war dhaadaar yaa leh war shabaab yaa leh war turmasaala yaa leh war anagu xaggee joognaa war ma marokan jooga anagu war ma suuriyaan jooga war hadduu muslim yahay mu aadu meesha jihaad ku jira gurigiisa mu qoraysto muslim maaha gaal weeye ilaahay islaam ka furtay dhiiggayga xalaalsaday aniga dhiiggayga ninka xalaalsaday dhiiggiisu waa xalaal dhiiggayga ninka xalaalsaday dhiiggiisu waa xalaal sheekh aan weydiinayo oo wahaabi ah ma jirto ummadda soomaaliyeed ka digtoonaada dhagarta wahaabiyiinta ka digtoonaada aad baan idin salaamayaa mudaharaadku ha socdo dadka reer puntland ee xalaasha ana indhihiina wax ku arka kuwa mudaharaadayana gacan gooniya ku qabta waan idin salaamayaa guul baan u rajaynayaa shacabka reer puntland guul baan u rajaynayaa ciidamada puntland geedkay galaanba gooya gurigay galaanba guba wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu ilaahay hana guuleeyo wabillahi towfiiq